وكان مسجد قبة وانا قلنا وانا فيرنا ماشي شهادتي تضواتك صحابي بورتو تغنا وكسو سلامنا ومسجد كبوريا واسلام la dhisay dagaalka Uhud xagaas uu ka dhacay xagana dadka muslimiinta ayaa taagnaa rasuulku wuxuu ku dhahay rasuul sallallahu alayhi wasallam ha ka degina mar walba السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله gaarigaas ka soo degnay waa kan masjid Quba وانا قلنا وانا فيرنا مسجد قبة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث waxaan ku dhex jiraa masjid Quba waa masjidka ugu horeeya oo islaamka la dhisay waa kan ma garatay soo saqafkiisa caadi maaha xataa waxa ku qoran Bilaal al-Habashi ay ku qoran waxyaabo badan oo ku qoran oo taariikhda islaamka haddii aad timaado Makka Madiina ka wada haddii aad timaado Madiina waa inaad soo boqotaa طبعا laba ragcadood baa ku tukanana موعد للقاء من هنا أشرقا والدرب زان مع القرآن ارتقى شاننا في المعالي ارتقى تمر أي حاجة لو قايبينية مشاس يا بيا فريالي سيء وكما فهموا ذاك بحنيها waxaan joogaa Jabal Aruma buurtan hadda ku taaganahay iyo buurta dhinacaas taas uu dheeryahay uu yaray buurta waa buurta Uhudna waa kuwaas buurta Uhud rasuulka xagaas ayuu joogay dagaalka magalin Khalid bin Walid oo ahayn markaa muslim ma islaamin ayaa dagaalka buurahaas ayaa la dhahay mid kamid ah ayuu joogay asaguna dagaalka Uhud xagaas uu ka dhacay ma garatay xagana dadka muslimiinta ayaa taagnaa marka waxa weeye rasuulku wuxuu ku dhahay rasuul sallallahu alayhi wasallam ha ka degina mar walba ha ka degina hoos ha degina marka guuleysano dadkii meesha taagna waxa islaahay waa guuleysateen way ka degeen buraha xagga dambe waxa joogay Khalid bin Walid uu arkay in ka degeen buurtan xagga sare soo koray buurtan ka dheerad bariga hore hadda waxa la dhahaa haraaga kaliyata Khalid bin Walid markuu xagga soo koray gadaal ayuu ugu imatay dadka meesha dagaalka ku jireen oo kaga badiyay waxa la dhahay ilaa 70 asxaabi baa ku dhintay qubuurtoodana waa taa xagga ku yaalo waana tagnaa soo salaana Khalid bin Walid waligiis lagama badin dagaalna asagoo muslim ah iyo asagoo muslim ahayn wuxuu ahaa yani khudadu dhigo ama wuxuu sidoo u dhigo dagaalka uu ku guuleysta aragtidiisana oo dheertay ma garatay soo xagga asagoo joogo ayuu arkay muslimiinta xaggan taagnaa inay ka degeen buurta ma garatay korbu kaga imaatay waana kaga badiyay asagoo muslim ahayn markaa ka bacdi waa islaamay asagoo muslim ahayn iyo asagoo muslim ah waligiis lagama badan soo waxaan tagnaa meeshii shuhadadii todobaatanka saxaabi buurtooda tagnaa oo kusoo salaamana qubuurta waatan waa soo duceynaa qubuurta waxa weeyaan 70 ayaa ku dhintay la dhahaa saxaabi xagaas ku qoraya xadiisa iyo waxa dhahay doontid waxyaabo badan baa iska ilaalin kartaa dhagaxayna qaad waa mamnuuc kamarada meel walba ku xiran waxa taagan qolada ilaalinsa qubuurta meesha Jabal Rumana waa kan meesha dagaalka ka dhacayna waa kan ma garatay so haddii aad timaadin Uhudna waa taa Uhudna waa kan isku dhudhooyin masjidkana waa kan masjid shuhada inta isku dhudhooyin subax iyo galin dambe ku dhaanta waayo uu kugu yahay marka qorraxda dhacaya iyo masjidkan ku tago ishaaga ma garatay so أنا مريح دعاء آخرنا هذا آخرنا دعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية